برشو وقويان وين درجات كسيامينا وقويان وين درجات كسيامينا هوي 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 برشو وقويان وين درجات كسيامينا وقويان وين درجات كسيامينا waxaan ku yeelanay muddo dhowr sano ba hadda 2 sano 3 sano meelaha inay dhantaan u maleeyay maan arrin wadne arrintaas iniga horteed ay dhaqmaana u gudbinin waxaan idinku soo gudbinay waxa way jiiraanimada iyo derisnimada aan xero ku wada jirno yaan idinku soo gudbinay ilaa idinka bilaawna yay nala noqotay Soomaali waxa qubin hayo waxa way horta wax qabiil iyo reer la yiro annaga dadweynaha hadaan nahay maalin baa fursad leen hasho maalin ah adduun intuu wareegay maalin baa fursad leen maalinka waa maalinka koor ridma la gaaro yaa wax meegeli ma dhahnaa waxaan dhahnaa yaa reer hibil tanna waa lagu dhumay waxaan doonay annaga haddaan reer Buraa nahay ama qaasan aan nahay waxaan doonay dhibkan annaga nahayo bal inaan ka bixi karno inaan isku dayno oo maxaa ka mid ah Faarax Cabdi Cali baa wuxuu yahay caawda 6 gabdhood iyo hal wiil buu dhalay wixii baa maanta nahaya ninkii hawada gasho oo caawda qodobaan joogsan wuxuu ku leeyahay faafi baan ka taagan wax af kale ma jiro cidba waxay isku haysataa MB-nimadii iyo waxay isku haysataa gafananimadii wax caawda oo dhugtaale oo dhaho maanta cidihay hara qabiilka reebil loo daayo waa la waay annaga taladaanada waxay ahayd 3 qabiil 3 qoys oo caawda ah wax waxay tale ay noola imaadaan inaan ayidno waa reewowgay Muuse maxaad aadan geli 3 qoys waxay noola imaadaan inaan la qaadno baan go'aankeed gaarnay annaga waxaan doonay dhibid gafana ogaadeen inaan ku xirano ninka wax noo geli jiiraanimadii baan iigu yeerinay marka arrinta aan idinku yeerinay waa arrinta ayada ee reer hebel wax la yiro inaan ka tagno oo nin alla ninka aan u malaynayno dantaanada danta dadweynaha inuu wax nooga qaban karo inaan raacnaan go'aankeed gaarin arrintaan idinku yeerinay waa midda ayada ee aan jecelahay weliba inaad nala qaadiin baan jecelahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka waa jiiraan ilaahay markuu arrada fidiyey ninba meel buu makamiyey meesha anagu makamiyey anaga inagu ilaahay makamiyey dad baan isugu xidhnaa jiiraan baan nahaa walaal baan nahaa aawaq waa nooga sokaysiin aawaq markaas la naho aawaqan waa nooga sokaysiin jiiraannima nooga sokaysiin jiiraannimo yaa nooga sokaysiin waxaa la dhahay gel waxay ka soo dhaco gafuur baa leh wixii annaga laga soo dhaco ninkii maaragtay aan nala qabtiin aan rabnaa annaga waxaa la dhahay hadal badan haa ma buuxiyo hadal badan hadda aan ku sii hadlay mala wixii aan ku hadli lahaa duqi baa dhammaytire annaga waxaan rabnaa dhibid gafanaan soo qaadnay waqti badan baan wadnay ninka meyto Naasir Maxamed la dhahaan soo qaadanay marka waxaan rabnaa inaan nala qaadin walaalow aan isku rag noqono aan is ogaano haddii laba jiiraan
جاهد وإلا شيء ويسوتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول جبريل إنه وعما إصلح العالم جبريل أمو دحل خصوص درعا جيران يعني أولا يا أبو دهير وقل بقى إنه بينتنا علماء بغض عمد الجوكتاء أنا وعمانت إنه يرني أن أوضع إنه لصوت أحبحني إنه جيران له إنه ولا له ولا إنه نسوي حتى بعد نسوي بعد المفروض بعد نسوي بين يا بعد اللي ظهر كان شيء بعد لماذا يعني يقولون بعد لماذا يعني يقولون marka walaalayaal waxaan rabnaa inaan nala qaadin ninka inaan nala qaadin qalbi ilaahay macbuudka aan baa wax bixiyay hadii ilaahay wax meel fiican nama siiyo ilaahay nama kamiyo inaan midkood noqono oo wax wala qeybsano oo meesha wala marno sidana inuu yeerane bal ogaadeenkii inaan la qaybsanno wax yaan sanad markay dowladdan dhisneed yaan doonne waa ina yeela waranahay maxaa halkan saxanka annagnaana yeeline ogaadeen saxankan sharciga kenya yaa saxanka wax lagu wada siiye nin maanta ninkii rabo gafannimaan u taagan dhaho cawdaa kalimaha ogaadeen buu u doonan ogaadeenkii annagaa doonanne inaan wax la qaybsanna isku dayne wixii hadtan ay nooganibal aan u malaynayno inaan wax ku qabno wax ka fiican inaan keenaynayna la noqoto maxaa ninkii gafanahay ninkii ku xigay haddaan noqono wixii naana imaada kumidooda u imaaday wixii biraa imaadana wuu imaan marka walaalayaal intana idinku yeerine waadna raalli ahaanaysaan noola soo dhawaada inti inaad nala qaadaan waa afka ay dheelaad unbaan ku leeyahy intaasaan idinku yeerine noola soo dhawaada walaalayaalo raadkii waxay idiin sheegtay unbaan anigana la qabaa waxaad ogtihiin waktiga maanta la joogo waa midii odar bee uu dhahay dad ilaah waa ku runaayo waa walaalka adduunyana waa geel marka dambana wuxuu yidhi dad waa ninkay dabeecadii naysiiso horta anag ma aha ogaadeen haddaan wax la qaybsano inaan kitaab weli la galnay ma aha waxaa jirtay wakti hore oo maamulka ayagu horeeyeen wax hadda dhib oo laga gaaray ka kabsan wayne baad garanaysin oo ogaadadu lagu sameeyey ma jiro sida aawadeed waxaan rabnaa waxaa la yiri dowlad qaybsi dhaqan baa la jiraa ma ugu lama joogo dhaxal dhaqankii inaan la qaybsano ogaadeen oo mataqaanaa aan la qaybsano yaa mataqaanaa anaa ku talagalnay ti iyada awadane unbaan idinku yeernay inaan jiiraan baan nahayn ninba waxaa la yidhi ninkii ku xig waxaan haduu celiyo jiiraannimadii iyo mataqaanaa walaalnimadii unbaan idinku yeerinay wax eebe ma aha way fiicanta cid baaba intii loo sahmiyo ilaahay magasaate meeshii ku xumi meeshii ka san yaa loogu xeradan yahay labadii inoo saamaysa nina geedi buu keeni nina ma keenay maxaa haddi ilaaqdoodaa kale eh ilaaqdoodii yaa kale eh si fiican baad u hadasheen ma xunin haddaad ii yeertee wuxuu yihi waa ku jecla ninkii ku dhaho waa ku jecla ninkii ku dhaho waa ku jentaa yaa laguwe waa mahadsantihiin waan maqalna wixii arabtiin waa idiin fahani waana jirta annaga dowladdan hadda maanta noogu jirta countiga aad baan markii la soo dhisay aad iyo aad baan ugu dadaalnay ilaahay jahdiisno ajar ha naga siiyo laakiin weli boorka iyo siigidii noo sii muuqan 5 sanana way dhammaatay run ahaan had markaan daarno faafi ahaan haddii la dhaho county kama jirto waa run ahaan markaan dhan faafi county kama jirto maxaa ma sheegi karna haddii ma annagaa dhahnay waa dherigne oo dherig maaba xisaabanaysaa maa nugula daa maba nala soo aadin miya reefaafiga kaarisa county kuma jirto miya
ma sheegi karno laakiin hadda saacadan aan joogno faafi ma qabto maxaan ku idhaahdaaye gafana ma qabto runana sheegay ani naftay markii maalin hore la soo dooranayay gafanaaga hadda noo jooga cali bunow aadan ugu gabiye wixii aan sheegay waxyar ama ka xasuustaa hadda waxaan ihi nin walba codeyska cali bunow ha noqdo maanta intaan ba hadda ka xasuusan wixii badnaa aan soo maray cajaladii kolleyta way taallaa malay haddii asag la weydiiyo waa la heli soo ma waad heli doontaa insha allahu taa hadda maantana waxay joogto maxaa beriga horta maxaad dhahday iyo maxaad samaysay shaki baana galaba iyo maxaa kuu gey taa waa taas waxaan soo geli ree awowgey ree qaasim waxaan u malaynay idinma diidayno annagana maanta waxaa waaye ihooq aan ku hooqe haddii la waayo ree aabin ree muus ma hasiin waa idin maqalle walaalaha annagaa tihiin aad baan in badan idinku lisna aad mar ma aha laba ma aha saddex ma aha afar ma aha toban ma aha awadaa qowl qaas cabdikarin hore ogoy haddaa noo yeerateen waxaa noogu yeerateen waan maqalnay waan laiskugu yeerin jiray waanay fiican tahay laakiin waxaan dardaaran u dalboo dhaafi anag saasaan wadanaaye bal ogaaday anala hilmaamin anagana inaana nii hilmaamin haddaa ni hilmaantiin de awraq badan baa tuuranaya ka amaanta wa ka gelaynaa hadda waa nala oodin macal naasirna wuxuu kasoo shaqeeyey m c a ahayd dadka uu shaqad qoraan ku jiraan macal naasir maalinku asaga uu dawladda ku jira ani dawladnimadii ugu dambeysay ani shicib baan noqtay shicib ani shicib baan noqtay maantana maxaan qiyaasay hadduu dawladda ku jiro inaan dawlad ahaan lahay dad badanoo maanta duqeydina dhaleen way noo yihiin ani mawlid laakiin xagga dawladnimada aaba kama qabno mawlid dadka awoonta ani asagoon ku jirna marka ogaadeenna aan la qabsano ogaadeenna aan la qabsano war maxaan u malayn culamo badan aa fadhidaay ma jiraa u malayn qabiil xal dhaho godkii yaraa gelis geli ninka dadku ugu xoogo lama dhahay maxamed cabdisid u yara kor faar cabdi lama dhahay nin walba camalku la imaaday iyo walaalnimo uu ku dhaktay unba lagu jisayno war maxaad yeeshiin ogaadeen ani maxaa aada ugu celcelinay ogaadeen aan wax la qaybsano naasiro arrintan maxaan ku qatimay dhexseenaa ka dhigin assalaamu calaykum qofka walaalka markuu ku yirto waa sunna inaad soo ajiibto waxaan u malaynay dadka xogaaga waxaa lagu fura tension oo cabsi siyaasadeeda jira middaa waxaa ka daran waxaa jiraan elective oo dawladda ay soo rogtay oo loo ogoleen inay dad isku imaadaan horta waxaa keentay inuu macalin naasir dad yar uu meesha soo galo waxyaalahaasaa jiraan haddii aan ahno macalin naasir reer qaasin oo dhan ninkan muu suuragelayso horta ninkan waa nin walaalkaanu soo hawooday wuxuuna noogu yeertay xigaal iyo maaragtay waxaa la dhahee dhaliyo wadaag iyo dheerar wadaag labadaba waana anag ninkana kolaba dawladdii hore inaan kuna noqono aan wax ka sheegno waxba maaragtay wax isu kordhin ma jiro because waan aragnay dab maxaa le ninka gadaal laga wareystaa intii intoo meesha u istaagtay way calacashe calacalkina oo dee sidaa uga bixi leed aday hadda gacanta kuga jirta 5 sano hadda aan soo dhaafnay hadduu maan nin ogaadayn kalena maamulay waxaa laga yaabaa inaan calacal lahayn oo aan dhihi lahayn ogaadayn baasaaneed ninkii kula dhashay oo walaalkaada saa ku yeelay haddana fursada haysata ninka markaad aqoon la gashid oo siyaasadiisa aa aragto waxtarkiisa aa aragto dawladda sharciga kenya u yaal waxaa way 5 sano change inuu dhaco isbedel inuu dhaco markaa nin hawl siyaasadda hadda maxamed axmed wuxuu ka sheegay ina dadka dhib haysto dad qaarna ay ku danaystaan waa jiraan dad danaystaan had maxaan garan dad saaknin soo aan gaarkiina orahan maxaa ka deynaysin garas oo aanay dhibkay ma hayside marka aan wax doonto maxaa aad ogaa oo diidan mise ana xor soomihi Soomaali kari soo cod ma qabi soo ninka Kenyaanka uu 18 sano gaaro ay diin u qaato waa xor waxba ayaa lagu cajuuleeyay codkaada askale ninkii had 5 sano tabcana 5 sano uu qaatay ka dhamaanay hadduu gafarayo hadduu halka aha
ninkaas shantaas sana way soo dhaaf mar dambana ma soo marayso haddana aada gacanta kugu jirta inaad bedesho marka nin waxba aan badan ninka bini aadanka waxaa la rabaa meeshuu ka danqade oo waxa uu maartay uu ka gaaray inuu ka dooq uu ka fogaado maxay nasrow mase ku guulayso mase ku guulaysan muuse mase ha ku raaco muuse ku raacin aniga farax bul adi iyo mashimua shidiye meeshaad ku dhacdaan ma ku dhaxay inta aan ka dhashay inta aan wato oo i raacsan oo i danqisanayso oo dareemayso way raacay midda hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha muuse ibraahim oo annagana markaan dan rabno baxaday noo imaada aan dhahno ayagana hadda ay ka sheegteen inaan mahad nee celiyo wax celiskaan yaan kari waayna umalen bal waxaan hawaya qaata baxadeynimada yaan garan waayna umalen horta inaan aada nigu mahad celiyo yaan rabaa waxaan maxaa yeele dad baa iga imaaday ilaa kamuda meesha muusaha joogo muuse Garissa Township iyo muuse Faafi iyo qayb kamid ah muuse Balambala oo Garissa joogay yaa nala joogaa muuse kaloo Bardali aan ka sugayne maanta nooma imaanin waxay noogu imaanin diin bay qabaan xaggaas ay diin ku qabaan oo maanta asna dhacayo inaan ka waraysiin mooyay ka waraysiin waa ogtiin Soomaa marka diinkaas soobtiisay u hakadeen shirkooda gaar inaan u qabto yee qasabtay ayaga marka intiinan hadda kasoo qayb gashay oo ay imaatay oo tuulo walba ka socdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin danta hadda aan ku jirnana waxaan u malaynay nin walba dhagow ka rimin oo waa laga warhayaa cawda waxaan ka warhaynin waa gabad in la kari waayo wala arkaa qaas in la kari waayo nin walba cawda baa u baahan ninkiisa wax waayo in hadhow garab loo qabto u baahan marka waxaan waa wax noo wada dan yaana section iyo qaasim baa wax doonan haya yaana ka dhigin xubin cawda isku la waay aan wada doonanayno haddii aan soo hankaagno aan ku soo orodno saa horta hoosh u fahma saa horta hoosh u fahma shirarkana waa isdaba socdaan hadda reemo soo jiraan oo bacdi oo xoogaa dadka kale aan ka irtixgelin inaan ka bilaawdo mooye kuma dhamaanaysa yaxyaa ku xugay yaxyaa yaa soo socdaa asagana oo lala fariisani oo naqaadi Haarun baa ku jira qoys cawda aan la fariisanayn male odayaasha weyn ana uma yeerinay oo waxaan ugu yeerinayna waa wada ka siisin ba malen cali suntur soodirka ima duqa qaasin Soomaa wali asoo la socdo maaragtay hooshaydu istaagta qaasinka istaagta ma qashin maaragtay way soconi asoo maqan maxaa geedku joogo geedkiisa iska joogo annagana waxaan doonaynaa marka dhamayo xumaan ma jirto cawdaqna ma naxsanin degti aan degannaho unbaa nagu xumaatay degti hadday xumaatay deg abaar ee mala dhex fadhi waa in laga guuro laga gedisto meel kuu dhanta daash inaad dadaato waay waa inaad sahansato ani sahankaasaan ku maqnaa sahanna waan soo arkay inaan caragedisanay ila noqote inaan caragedisano yaa ila noqote ani waxaan rabaa wax inaan wada qaybsano oo xanjo aan soo bujisano intaa un baan doonaya meeshana xaalkeedana ash ma aha ash een lama taagnaana weliba gadaal dambe sidii qaasin asalba meeshu ka baxo dawladna waa kasoo dhismay inniga anii su-aali reer muse reer qaasin oo dhan kii Faafi iyo kii Balambalaa jiray yaaba ka baxo dawladda cawda mana dhis rabo qaasin maanta qaasin inuu dhis rabo maynilta inig ilaa Garis weyne waan tagnaa annaga ilaa iyo Saaqa ilaa Garis qaasin kuu jiray ma dhis rabno qaasin meeshu ka baxo dawladda may soo geli haddii soo geli kaalena lagala tan aan dhis rabno to kalaan soo dhis rabna oo ogaadine kaale tan nala gala tan aan wada dhisano tan aan qayb u doonano
tan aan niigu yeedhno waa taas hadhow yaanaan isla qadan banaanka taagnaanina dowladdan keegan la kala goosan rabo aan isla goosano nin walba wixii kasoo gaaro nin walba wixii kasoo gaaro intaan niigu yeedhno waa intaa oo aan rabno inaan ka wada sheekaysan aan rabin aan ka wada hadalno adeerayaalow inagana aad ba umahadsantihiin warkana waa kaas